afartii sano ee la soo dhaafay gobolka City ee deegaanka Soomaali Galbeed waxaa ka dhacay xasuuqyo bahalnimo ah, bahdil aad u xun, xog ku barakicin macluusha haraadka iyo gaajada oo loo adeegsaday qaab dagaal oo kale. Afartaa sano waxaa ka socday olole isir-safayna kaasoo horey loo sii qorsheeyey kana dhan ah shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka City. City juqraafi ahaan waxay ku taallaa goob muhiim ah oo halbowle u ah dhaqaalaha Itoobiya iyadoo ay maraan in ka badan boqolkiiba 95 dhoofinta iyo soo dejinta badeecooyinka Itoobiya. City waxay ku taallaa waqooyiga galbeed ee deegaanka Soomaalida. Dhanka koonfureed waxaa ka xiga deegaanka Oromiya, galbeedkana waxay xuduud la wadaagtaa deegaanka Canfarta. Waqooyigana waxaa ka xiga dalka Djibouti halka ay barigana soodin kala wadaagto Somaliland. Ka hor inta aanan tafaasiil ka bixin xasuuqyadii ba'naa ee ka dhacay galbeedka City, bal aan tafaasiil kooban ka bixino dhaqanka guracan ee gumaysiga Itoobiya, sidii ay ku timid Imbaradoriyadda Itoobiya, aragtida ilma Abasiiniya ee ku wajahan Soomaalida, iyo sidii ay u qabsatay deegaanka Soomaali Galbeed Ogaadeniya. Itoobiya waxaa lagu aasaasay amba lagu soo dhisay dhiig daadin. Ka dowlad ahaan waxaa lagu daahfuray qulqulatooyin lagu dabargooyay qowmiyado badan oo ku dhaqnaan jiray dalkan. Waxaa kale oo lagu caleema saaray aasaaskii gumaysiga Itoobiya dhac rabshado bahalnimo, xasuuq wadareedo iyo xog ku barakicin loo geystay dadyow badan oo ku dhaqnaan jiray Itoobiya oo ay ka mid ahaayeen dadka Soomaalidu. Xasuuqa ka dhacay maanta galbeedka City ma aha markii ugu horeysay oo dad Soomaaliyeed ay xasuuqyo bahalnimo ah u geysato Itoobiya, tan iyo markii ay Itoobiya xoog ku qabsatay dhulka Soomaali Galbeed. Waxay ka geysatay xasuuqyo fara badan, barakicin iyo bahdil ballaadhan, iyadoo oo gaajada u adeegsan jirtay sidii hub camal xilliyada ay dhacaan abaaruhu amba dadka ay iyagu marka horeba qasab ku barakiciyeen. Dabeecadda guracan ee dhagar badanta Imbaradoriyadda Xabashida, dhismaha dowladnimo ee Itoobiya wuxuu ku yimid shirkii caanka ahaa ee Berlin ee dhacay 1884 ee ay gumaystayaasha reer Yurub ku kala qaybsanayeen Afrikada sidii keeg oo kale. Menelik wuxuu ka helay qayb libaax kadib markii loo tixgeliyay codsigiisii inuu isaguna rabo inuu qaato qaybtiisa Afrikadan lagu qaybsanayo Berlin. Shirkii Berlin maanta waxaa laga joogaa 135 sano. Shirkaas oo ay isugu yimaadeen quwadihii gumaystayaashii reer Yurub si ay ugu tashadaan tartanka ay ugu jireen qaybsashada Afrika. Si kastaba ha ahaatee, Emperor Menelik ayaa warqad codsiga u qoray taasoo uu ku caddeeyay damiciisa, isagoo u diray hogaamiyayaashii Yurub oo fadhiyay miis u eg faras, iyaga oo dejinaya habkii loo maareyn lahaa gumaysiga Afrika. Sidaas awgeed, quwadihii gumaystayaasha reer Yurub waxay ixtiraameen dalabkii Menelik oo way taageereen damiciisii dhulballaadhsiga. Isku soo wada duubo, Imbaradoriyadda Xabashidu waxay taageero ka helaysay quwadihii gumaystayaasha reer Yurub. Sidaas darteed,
Minilik wuxuu qayb libaax ka qaatay qaybtankii geeska Afrika. Gumaystayaasha Xabashidu waxay geeska Afrika ka geysteen ku dhowaad dhammaan xumaanta wixii aqliga uu suuraysan karo. Si kastaba ha ahaatee, qowmiyadda Soomaalida ee ku hoos nool gumaysiga Itoobiya waa dadka loogu neceb yahay qobtulka Itoobiya, loona arko inay Soomaalidu yihiin dad aan u qalmin xuquuqda bini'aadantinimo iyo mid muwaadinba, kana mid ahayn huwanta Itoobiya ee loo yaqaano Xabashida. Laakiin dhulka ay degan yihiin Soomaalidu uu yahay dhul Itoobiyaan tan iyo markii ay gumaystayaasha madow ee ilma Abasiiniya ay qabsadeen dhulka Soomaali galbeed. Dadka Soomaaliyeed ma ahayn kuwo isdhiibay ee waxay Xabashida la galeen halgan hubaysan, kaasooy u diideen inay jaan iyo cirib dhigaan deegaanka. Ma ahayn dadka Soomaaliyeed kuwa qaatay afka dibdhac ee Xabashiga iyo dhaqanka assimilationka ee ay wataan ilma Abasiiniya. Taasi waxay sababtay in gumaysiga Itoobiya ay mar walba u tafaxaydan yihiin in Soomaalida xoog lagaga barakacsho dhulkooga hooy ee ay ka dhaxleen awoowayaashood. Aqoonyahanka, siyaasiyiinta, cilmi baadhayaasha iyo muwaadiniinta caadiga ah ee Itoobiya waxay yidhaahdaan Soomaalidu waxay ku imatay daaq dhuleed ee iyagu ma leh dhulkan. Laakiin xaqiiqada waxay tahay in Xabashidu amba Abasiiniyiintu ay ka yimaadeen asalkoogii waqooyiga fog ee Itoobiya, iyaga oo qarnigii 19aad duulaan hubaysan ay ku qabsadeen shucuubta Kuushatiga ee ay ka mid yihiin Soomaalida, Oromada, Canfarta, Sidaamada, Gambeelaga, deegaanada bariga iyo galbeedka iyo koonfurta Itoobiya. Duulaanka hubaysan ee ay Xabashidu hogaaminaysay ee ku soo qaaday dhulkii ay deganaayeen Afrikaankii asalka ahaa ee ay ka mid ahaayeen dadka Kuushatiga, waxa u dhib yareeyay Minilik hubkii uu ka heli jiray inay siiyaan quwadihii shisheeye ee gumaystiga oo ay gacan saar lahaayeen Minilik. Ka sokow xasuuqyada arxanka daran ee ka dhacay galbeedka City, barakacayaasha ka soo firxaday gumaadka isirbeegsiga ah ee ka socday 4 sano galbeedka City, ayay hay'adaha caalamiga iyo dowladda federaalka Itoobiya iyo horjoogayaasha jigjiga ka taliya ee gumaystaha u shaqeeya ee loo garan og yahay DDS ayaa si ula kac dayacaad ugu geystay dadka nugulka ah ee ku dhex rafaadsan gudaha gobolka City. Dowladda Itoobiya ayaa amar cad ku bixisay in dhammaan la faafreebo xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta gobolka City, iyadoo oo diiday in la daabaco gabadfalada ka dhacay gobolka City ee ay geysteen huwanta ciidamada deegaanka Canfarta, jabhadahooga iyo ciidamada Itoobiya oo iskarabsanayo. Isku soo wada duubo, bishii July ee sanadkii 2022 baarlamaanka Itoobiya ayaa soo saaray go'aan lagu sameeyay guddiyo baadhitaan ku sameeya meelaha ay ka dhaceen xadgudubyada ka dhanka ah bini'aadanka. Guddigaas oo u kala baxayay gobollada oo dhan ayaa laga saaray deegaanka Soomaalida oo ay ku dhex barakacsan yihiin in ka badan 600 oo qof. Sidoo kale, dhowaan ayay wasaaradda nabadgelyada qoraal ay soo saartay
ayay ku sheegtay in deegaanka Soomaalida iyo Canfarta dagaalka ka dhexeeya ay yihiin xoogag shisheeye oo ka yimiday Muqdisho iyo Hargeysa iyo Jabuuti, taasoo aan sal iyo raad lahayn. Sidoo kale, xafiiska xuquuqal insaanka ee qaramada midoobay iyo komishanka xuquuqal insaanka ee Itoobiya oo wadatashi u qabtay dhowaan bishii Diseembar qowmiyadaha Itoobiya, taasoo lagu raadinayay xal waara, iscafis, magdhow iyo cadaaladda ku meel gaadhka ah, ayaa laga reebay dadka Soomaalida liiskaas. Sidoo kale, waxaa intaa dheer in abaarihii dhacay iyo barakacayaasha galbeedka City loo diiday in la siiyo wax gargaara, taas oo ay heshiis ku yihiin kooxo badan oo ka soo kala jeedo meelo kala gedisan. Si kastaba ha ahaatee, xaalka galbeedka City iyo dagaalka arxan-darrada ah ee ka socda galbeedka City ayaa ah weli mid halkiisii ka sii socdo. Sidoo kale, dadka Soomaaliyeed ee mas'uuliyiinta, aqoon-yahanka iyo waxgaradka ayaana ahayn kuwa dhag aan jalaq u siinaynin waxa ka socda galbeedka City iyo dhibaatooyinka loo geysanaya shacabka. Dhowaan ayay ahayd markii la sameeyey 3 maamul iyo 3 degmo oo laga aasaasay galbeedka City, laakiin hal bil kadib waa lala wareegay. Kadib August markii la weegay Cundufo iyo dal la helay, haddana maamulka horjoogayaasha ah ee ka taliya Jigjiga ayaa mar labaad aasaasay degmooyin kale cusub. Kuwiina dhowaan ayaa gacanta lagu dhigay iyaga oo aanan wax iska caabin la kulmin, sababtoo ah maamulka Soomaalidu ma aha mid u dhaga nugul amba u diyaarsan inay difaacaan amba gargaar bini'aadantinimo gaadhsiiyaan dadka shacabka ah ee ku tabaalaysan xuduudka u dhexeeya labada deegaan, kuwaasoo hadda dhammaan laga barakacshay aagaggii ay degganaayeen. Hase yeeshee, xadgudubyada ka socda ayaa ah mid indhaha caalamka ka qarsoon.